بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور دوادا كنالك الصحانسو ميديا maanta waxaan idinla wadaagi doonaa taariikh yaro ku saabsan ama aan kaga hadli doono mid ka mid ah culimadii waaweyneed ee islaamka soo martay nucmaan ibnu thaabit asalkiisu wuxuu ka soo jeeday kaabuul ee waddanka afghanistaan waa imaamka madhabka xanafiyada oo ku badan dalalka aasiya iyo turkiga imaamu abu xaniifa aad ayuu u caqli badnaa una cilmi badnaa waxaa lagu tiriyaa dadkii adduunka ugu caqliga badnaa waxa uu xoogga saaray fiqiga iyo soo dhiraandhirinta axkaamta oo hurmuud ku ahaa waxa uu ahaa faqiih aan cid la barbar dhiga lahayn imaamku waxa uu xoogga saari jiray adeegsiga qiyaaska iyo ra'yiga si uu ula soo baxo axkaamta fiqiga maxaa yeelay xilligiisii waxaa ciraaq ku badnaa axaadiista beenta ah aadna looguma kalsoonayn waxay warinayaan tusaale ahaan reer madiina inta badan mayna xujaysan jirin xadiiska ay wariyeen reer ciraaq abu xaniifa iyo ardadiisu waxay matalayeen madrasada ahlura'yiga ardadiisii waxa ugu caansanaa qaadii abi yuusuf iyo maxamed ibnu xasan ashaybaani ardadiisii ayaa aqoontiisii diiwaangelisay oo inoo soo gudbisay xalaqadiisu waxay lahayd nidaam cajiib ah hadba masale ayuu ardayda soo dhex dhigi jiray taasoo arday kasta aragtidiisa ka dhiibanayay isagoo caddaymihiisa keenaya mararka qaarkood ayaamo badan ayaa hal mas'alo la lafaguri jiray ilaa marka dambe go'aan laga soo saaro kaasoo la diiwaangelin jiray waa nidaamka jaamacadaha heerkoodu sarreeyo sida oxford iyo cambridge ay maanta adeegsadaan loona yaqaano tutorials imaamka ciidana kulama tartami jirin hoggaanka fiqiga imaamu shaaficina waa kii lahaa dadku fiqiga waxay u daba fadhiyaan abu xaniifa yaraantiisii waxa uu soo gaadhay qaar saxaabada ka mida sida anas binu maalik allaha ka raali noqdee markii uu hana qaaday waxa uu dhaxlay ganacsigii aabbihii oo uu iibin jiray dharka xariirta ah waxa uu ahaa qof aad u cibaado badan oo xalaal miirad ah khaliifkii cabbaasiga ahaa ee almansuur ayaa ku amray inuu madax ka noqdo ama madax u noqdo garsoorka laakiin waa uu ka diidey isaga oo ku dacwoonaya inaannu ku habboonayn qabashada jagadaasi ee cid kale kaga habboon tahay ilaa markii dambe khaliifkii ku xanaaqay oo yidhi been baad sheegaysaa isagiina wuxuu ugu jawaabay haddii aan been sheegayo adigaaba ii qiray inaanan jagadan ku habboonayn sidee ayaad beenaale uga dhigi kartaa madaxa garsoorayaasha amardiiddadaasi ayaa lagu xidhay halkaasi oo lagu jir dilay markii dambena xabsigii ayuu ku geeriyooday sannadkii 150 hijriyada oo ahaa xilligii uu dhashay imaamu shaafici waxa uu ku aasan yahay magaalada baqhdaad halkaasoo ku yaallo masjid weyn oo magaciisa wata allah u naxariisto imaamka wanaaggii uu ummadda u sameeyeyna ha ka abaalmariyo aamiin waa inoo iyo muuqaalka kan xiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu